حاج عبد الكريم يوسف حسين حاج عبد ورابه oo ka tirsan xildhibaanada ugu daada weyn golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay muddo kordhin la sheegay in loo sameeyo xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Axmed Silaanyo waxaana hadaladiisii ka mid ahaa كمشركنا وحنا وما يمن حكومتنا وحنا يمادان ذاك هذا الله لا ما يمن الله وحنا يمين مجل دور الشديد بين سوقي ناجل وحيا ركار بلو geesta kalena xaaji cabdikariin yuusuf xuseen xaaji cabdi waraabe waxa uu ka hadlay aragtidiisa ku wajahan markabkii hubka siday ee dhawaan laga sii daayay dekedda magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil kadib markii ay sheegatay dawladda Suudaan waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaan u aragnaa waxaan la wixii dawladdu garatay waa mubaarak waa yisanay waxaan filayaa wax markabka ka culusoon inay lagu heshiiyey sidii kolba dawladdu garataa baa toosan gabagabadii xaaji cabdikariin yuusuf xuseen xaaji cabdi waraabe waxa uu waana u soo jeediyay dhammaan basalaadiinta kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoona sidoo kale ka hadlay suldaanka buuraha galay ee gobolka Awdal Suldaan Abubakar Cilmi Wabar waxaanu xaaji cabdikariin yuusuf xuseen xaaji cabdi waraabe yiri jahan waxaanu suraadiinta siinayaa ninkii meel joogaba hadduu cimaamad qaasuulaa suldaan baan ahay waxa horta koonfur ku baabaaday suldaannimadu ninuu qalma oo la doortay oo loo shiray oo la eegay oo laba walaal ah ka yarba miyiroon la yidhaahdo la saaraaba ahaan jirta iminka nin waliba isaga isboqray haddii ay isboqorteen wakhtigaa wada waa wakhtiga oo ceebbaya loo qaadan laakiin nin suldaana oo kayn gala oo qori qaatay oo carruurta waan laynayaa yidhi ka bari iyo ka galbeed iyo ka gudahan midna ma ogolin Khalid Bulshaawi Somaliland Space Channel Hargeysa